wuxuu yiraahday ajuuraan sida ajuuraan ayaa leedin waayaya ajuuraan anaga ah xildhibaan aan u ahay dawladda federaalka aniga ku matala wasiir baa jooga buuxa oo isna xildhibaan ah Ethiopian joogna Kenya joogna meena la ka waayo ma joogno deegaan baan nahay dhul aan leenahay dhulkaana waligaan ka talinayna waana joognaa hadalkaas inuu hadal gaf ah waay dalqadaya labada daan afkayga gabaydooda ku haboon inay u dhacdo dooni maayo nin oday oo xildhibaan ah ayaa waxa ka soo yeeray hadal gaf ku ah beesha boqortooyo ajuuraan hadalkaas wuxuu ahaa hadal gaf ah meel ku dhac ku ah beesha boqortooyo ajuuraan waa boqortooyo weyn oo magaciisa maamuus leh ummadda Soomaaliyeed taariikh aad u badan oo 1000 sano ku dhow joogtay oo boqortooyo ahayd oo waddankan maamuleysay oo dhulka ugu weyn dalkan xukunta oo kamid ah boqortooyinka Soomaaliya boqortooyada ugu weyn haddana waa degan yihiin dhulkii waa joogaan qabiilada ay la degan yihiin iyo magaalooyinka ay degan yihiin dadkaas ayaa og sharaftooda iyo karaamadooda nalama waayin waa joognaa sida hadalka xildhibaanku u dhacay waxaan leeyahay hadalkaas hadal gaf ahaa meel ku dhac ku ah boqortooyada ajuuraan aan ku haboonin in mas'uul ah inuu hadalkaas dhaho waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa odayaasha reerka waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa odayaasha reerka ee boqortooyada ajuuraan oo aan rabo waxaan mahadcelinayaa odayaasha boqortooyada ajuuraan oo si wanaagsan uga hadlay arrintaas Canada iyo waan bogaadinayaa odayaasha reerka waxaan leeyahay xildhibaanku si kale waa u hadli karay reerkiisa si kale wax uu sheegi karay laakiin wuxuu doorbiday inuu hadalkan dhaho waxaan rabnaa halaali gelin degdeg ah inuu ka bixiyo xildhibaan sanboloosha hadalka uu yiri ee beesha boqortooyo ajuuraan ku socda waa mahadsantiin